marka koobaad waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabadgelyo iyo caafimaad na siiyay sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo guulo waaweyn ka gaar howlgallada ka dhanka khawaarijta al-Habaab shirkeena jiraa'id maanta waxaan uga hadlaynaa howlgallo guuleystay oo balaaran ay sameeyeen ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida qaybada kala duwan ayaa jab culus ku gaarsiiyay degmada Xawaaley iyo deegaano hoos tago ee gobolka Shabeellada Dhexe cadawga khawaarijta al-Habaab in ku dhow 30 ka tirsan dhagarqabayaasha khawaarijta oo isugu jira horjoogayaal jabhadahoodii ayaa lagu dilay howlgalkaas ragga lagu dilay waxa kamid ah horjoogayaal sarsare oo lagu kala magacaabo Abu Busri oo loo yaqaan Sakriya Xasan Xuseen oo loo yaqaan Abu Xamaama Xasan Nasrullah oo loo yaqaan Abu Baras Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Macali Aadan sidaas oo kale waxa howlgal sifeen ah laga sameeyay degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug howlgalkaas ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutooyinka 17aad ee Kumaandoosta Gorgor iyo 18aad ee Kumaandoosta Gorgor ayagoo kaashanaya dadka deegaanka ay ku sugan magaalada Xarar Dheere ayaa howlgal barakeysan waxay ka sameeyeen wadada xiriirisa Xarar Dheere iyo wadada xiriirisa Xarar Dheere iyo Jawlo sidaas oo kale wadaariq iyo baraag iyo goobo kale ay howlgalkan oo ka dhacay sidaas oo kale maalmihii ugu dambeeyay waxa si guud dalkeen uga socday howlgal sifeen ah oo khawaarijta al-Habaab looga sifeenayo dalkeen hooyo waxa waajibaadkooda qaran gudanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo isbishalka Gorgor sidaas oo kale ciidanka nisa oo qayb ka ahay howlgalkii ka dhacay Shabeellada Dhexe ayagana si gaar ah ayaa uga mahad celinayna waxa sidaas oo kale qayb ka ah howlgalka diyaaradaha duqeymaha ka fulinayo goobaha ay cadow ku sugan yihiin gacanta ku hayaan wiilasheena geesiyaasha ah ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagana waxaan leenahay waa mahadsantiin maadaama uu nabiga Kaleey salaatu wasalaam Allah yashkurina sala yashkurullah qofka aan dadka u mahad celinin Ilaahay uma mahad celiyo waxaan kaga mahad celinaynaa sida aad uga siibteen qodaxda ku taagan shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo mar walba aad u taagantiin sida u sifay lahaadaan idinkoo fartoomay xadiiska xabiibkeena Kaleey salaatu wasalaam oo ahay duuba liman qatalahum muqataluhu laanta janna wax u sugnaatay qofkii dilo khawaarijta ama ay dilaan waxaad ku sugantihiin wadada wanaagsaneed oo nabiga tamaniya Kaleey salaatu wasalaam oo yiri la atraktuhum la aqtulannahum qatla aadin haddaan haleeli lahaa sida reer caad iyo reer Thamuud loo laayay oo kale ayaan u leeyahay waxaad gudanaysiin waajibaadkiina qaranka waxaad gudanaysiin inaad difaacdaan sharafka iyo xooha cirdiga iyo dhiigga iyo maalka ummadda Soomaaliyeed waxaan fariin gaar ah u dirayaa shacabka Soomaaliyeed ee maalmihii ugu dambeeyay ay baad weydiisanayeen khawaarijta ay ugu yeerayeen magac loo yaqaan sakawaad waxaan leenahay waxaad aruurinaysaan waa canshuur iyo xooha in ummadda aad dhacdaan maahan saka maahan zakada 8 sanfa ay ku baxday quraanka oo Ilaahay ku sheegay kamid ma ahidin lacagta aad diibto muwaadinow oo ay shabaab ay ka qaataan ama khawaarijta al-Habaab ay ka qaataan waxaad ogaataa inay tahay lacag lagu dhibaateenayo shacabka Soomaaliyeed oo laga soo bixinayo hubka iyo qaraxyada ee dadku ku dhibaateenayaan aayadda quraanka waxay ahayd aayadda quraanka waxay annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakana man qatala nasa jamii'an wa man ahyaha fakana ma ahya nasa jamii'an muwaadin laba mid adeeg ka go'daa inaad dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ah ama bini'aadamka aad badbaadiso oo maalkaaga iyo gacantaada aadan garab ugu siin khawaarijta ama inaad baabi'iso oo qayb ka noqoto dhibka ay geysanayaan oo Ilaahay kula xisaabtamo oo nabiga Kaleey salaatu wasalaam qiyaamaha qofka taakin la agdhigiisa qof muslima u kaalmeeyo in la dilo ama fuudeynteeda qayb ku yeesho qiyaamo wuxuu imaanayaa asagoo indhiisa ku qoran tahay wuxuu bari ka yahay jannada Ilaahay iyo naxariista Ilaahay marka waxaan leenahay walaalayaal waxaad ku dadaashaan inaad Ilaahay uga cabsataan waxaad bixinaysaan oo Ilaahay idin siiyay waxa in kaga baahan masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka caamiliinta ah waxa in kaga baahan dadka mujaahidiinta ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka yihiin waxa in kaga baahan dadka musaafirka ah oo dhiban dadka barakacyaasha ah ayaa in kaga baahan dadka diinta ka shaqeynaya iyo gargaarka ayaa in kaga baahan idin kaga ma baahno canug jabhad ah oo kobadacasa wato oo dhiig muslim inuu daadiyo halka soo istaagay oo beeniyay aayadda quraanka fi suuratu nisaa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima laba mid ka gooda amba Cali Dheere iyo Fuad Shangole iyo Axmed Diiri ayaad qaadanaysaa fariintooda ama fariintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabigeena u soo dhiibay fi suuratu nisaa aayadaas ayaa qaadanaysaa adiga ayay ka gooda marka inaad adduunyo badbaado aakhirana badbaado ama inaad adduunyo ciqaab ku noolaato aakhirana cadaabta Ilaahay iyo carada Ilaahay raadsato waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waxaad iska ilaalisaan khawaarijta waxaad u kaalmeynaysaa waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh